noloshayda doorashadayda qaladaadkaygu waa casharaday bareen qiimo gooyaaba miyuu jiraa si kastoo nolosha albaabada dhibaatooyinkeeda u farabataan marna haddana ha odhan waan ku wareeray oo waxaan sameeyo ma garanayo haddaadan noloshaada waxba ka go'aan qaadan karin waxaad ogaataa inaadan go'aan qaadan laftirkeeduba waa go'aan qofkana shakhsiyadiisu waxaa qeexaa waa labo waa marka koowaade waa dulqaadkiisa marka uusan waxba haysan iyo dabcidhaqmeedkiisa marka uu wax walba haysto inkastoo dunidan waagii baryaba ay cashar cusub ku dhigayso noloshaada kuna soo kordhinayso haddana qiimo gooyaa ma jiro saddexda cashar mid ka mid ah waa calool baahan jeeb maran iyo qalbi jaban waxay saddexdaas soo saaraan shakhsiyadda dhabta ah aad leedahay iyo tayadaada dhan kastoo dunida laga eegaba qof ayaa odhanaya jacayl ayaa i dhaawacay cidii xukumi lahaydna weli may dhalan xabsigii lagu xiri lahaana weli lama dhisin waxaa dadka dhaawacayase waa kuwo waaye aragnimadoodu ay gaaban tahay jacaylkana si khaldan u fahmay nolosha sideeduba way gaaban tahay muran iyo dagaalna way ka qaalisan tahay haddaba xusuuso nimcada haysatid oo qiimee dadka ku qiimeeya jacaylow dadka ku jeclaada darajada ay ku geeyaana u garo maalin walba cimrigaaga ka mid ah inta aysan fursadaha nolosha ka dhammaana wakhtigaaga wax uun ka sii haddii maanta wax kastoo aad jeceshahay lagu siiyo micnaheedu maaha in albaabada baahida oo dhammi ay kaa xirmeen ogow albaabo kaloo cusub ayaa mar walba sii furmaya ugu dambayntii jug ku dhiibto nolosha kuga dhacdo kastaaba waxay xoog dhismeed u tahay dadaalkaaga cusub wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu